aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay malafkaas nisa inaan xiro ayaan jecelahay isna oo aan kaga gudbo su'aalo kooban oo dheeraad ka ah afartii mawduuc ayaan hore u soo sheegay kuwaas oo ka kooban kuna saabsan marxaladda siyaasiga xaaladda gobolka iyo kiis muhiim ah oo la xiriira ciidan dawlad Soomaaliyeed dhalinyaro Soomaaliyeed oo loo diray dalka meel ka baxsan oo la sheegay in la soo tababaray muddo ku siman sanad in ka badan maqan waana ciidan Eritrea loo diray dhalinyaradaas Eritrea loo diray nabad sugidda qortay sida xogteeda aan hayno nambarkooda ma inoo sheegi kartaa hay'adaha khusaysan la markeeda sheegi karto laakiin nabad sugidda qortay أنا هذا لمبر كود أنا شغله وما حل صارني. أوكي. إلتريا لقي صح؟ ورن. وحلو تابره إن لا شيء دولة الصومالية هكذا جيسته إيو تابرنس. والدولة داس إلتريا كعاوس. مثل دولة كلادين كعاوس. ما فاهمين سؤال. هل كان لقي عيدنك؟ يلا إلتريا عالم كويسان حرير لا لهين وودن قاضون سن سياسة دهان. إن الدورتان Eritrea إذنكو هيلك دلال كلام حيكون بعد. ورت مركا أديك باهي قبتت. عندك سنة على قطع. أنا باهي ذا قبلنا وحي أهيد إن عيدنا لا تبرر. مركا الدولة دي كلها نوت تبرر وحي Eritrea وقد وانت ميشرتو. Eritrea ولي بقى إن تقانون مليانة هي الدولة ده أو تبرر في عنا كم تعمل Eritrea. يعني كل لوج جاي أنا تبرر أو في عنا بيسيان. يا قنت أقبلنا بيسيان. waxayna noqon doonaan ciidamada Soomaalida la soo tababaray kuwooda ugu tababarka fiican bay kamid noqon doonaan 5700 tiradaas inay tahay oo qaybo kala duwan ciidanka isugu jira saxba aniga hadda tirada inaan confirm gareeyo shaqadeeda ma aha waxa la baray ciidanka waxa la baray qaybo kala duwan oo militariga waxa loo tababaray tababar aad iyo aad u sareeya waxa lagu tababaray hub kala duwan waxa loo tababaray jir ahaan waxay noqon doonaan askar dalka Soomaaliyeed oo ah hanti ay u ay doonto sanado farabadan ay u ay doonaan saddex galka gobolka Geeska Afrika marka laga hadlayo waxa soo baxay markii uu bilowday November 2020kii dagaalkii gobolka Tigray ee Ethiopia ka dhacay in ciidankaas loo adeegsaday dagaalkii waqooyiga Tigray oo ay ka dagaalameen baadhame horta warkaas waa ka xumaa inaan dhaho waxa faafiyay Tigray iyo kuwa Tigray u shaqeeya Soomaaliya jooga dad siyaasiyiin jira oo Soomaaliya jooga oo Tigray shaqaalo ah Tigray maxaa la jeedaa warkaas yaa faafiyaan kala hadlayo aniga ciidamada Soomaaliya dagaalka Tigray ka qayb galay soo sheegaysid naam warkaas waxa faafiyaan ku yiri waa Tigray iyo wakiilada Tigray ee Soomaaliya jooga number 2 regionka waa taqaanaadii Ethiopia oo 100 milyan ah maxay uga baahan tahay ciidan oo dhowr kun oo Soomaali ah way ay ugu baahan tahay hal habeen bay qorataa 200 kun askari hal maalin bay qortaan 100 kun askari hal maalin qortaan horta xataa aqliga bini'aadamka ka soo horjeeda in la yiraahdo dawladda Ethiopia waxay u baahatay dhowr Soomaali ah oo tababar loo sameeyay u baahatay aqliga caadi ka soo horjeeda number 3 hal askari oo ciidanka dawladda Soomaaliyeed ay u dirtay Eritrea oo tababarka military u aaday hal askari oo ka qayb galay ma jiro waxa intaas kuugu daraaya xataa xeriyahooda kama bixin magaalooyin kale oo Eritrea xataa ma tagin ada xaqiijinaya Fahad Yaasiin ah oo taliyada nabad sugidda ah oo malafkaas hal askari oo ciidanka Soomaaliya oo tababarka ugu maqan oo xataa magaalo kale oo Eritrea aaday ma jiro iska daa wax kale dagaalna kama qayb galin loomana baahnayn waana war 100% xaqiiqo ah dadka faafinayna way ogaayeen inay been sheegayaan dad badan oo caabanayo hooyooyin iyo aabayaal ah saxaafadda waa ka aragtay waxay ka cabanayeen hadda warbixin khaldan la siiyay waa waarid maxaa ula hadla weydeen waa la hadalnay waa la xiriirnay ilmahoodan la soo hadalsiin kulligood ilmahoodan la soo hadalsiin ciid kasta waaridkood bay la soo hadlaan siday u leeyihiin nin walba waaridkiisa telefoon soo diraa dad dhintay waa jiraan oo askarta kamid ah oo ama tababar ama meel kale si kale u dhintay fiiri aniga faylka ciidanka mas'uul kama ahayn dad baa mas'uulka ah ciidanka military waa ciidan horta nabad sugid ma aha marka xogahooda qaar oo tafaasiisha ah aniga inta siyaasiga adiga weydiin kartaa wax dagaal oo ciidanka ay ka qayb galeen ma jiro abadan hal askari kama qayb galin Fahad Yaasiin nisa ayaa soo hogaamisay xog badan oo dalkana wad haysaa ku wajan amniga dalka gaar ahaan al-shabaab laakiin inta al-shabaab gaarin
waxaan codsan lahaa siyaasiyiinta Soomaaliyeed inay kala saaraan ajandaha siyaasiga iyo ajandaha qaranka. حاول تشيدا ciidan Soomaaliyeed in la dhiso waa ajanda qaran. yaa ka soo horjeeda ciidankan waxa loo dacaayadeynayo oo beenta looga sheegayo oo waalidiintaas caloosha looga soo tuurayo oo loo dhibaateynayo dad mas'uuliyiin oo Soomaaliya baa sameynaya. haddaad og tahayna maanta madaxweyne Maxamed Abdullaahi Farmaajo markuu xilka wareejinayay xil wareejintii buu ku daray ciidankaas maqan tababar bay u maqan yihiin madaxweyne la wareeg. maanta madaxweyne Xasan Sheekh wuxuu haystaa fursad qaali ah oo dahabi ah oo dalkana dib uga shaqeyn karo amniga dalkana uga shaqeyn karo waana wixii asaga ka horeeyay oo la qabtay madaxweyne kastana wixii hore loo qabtay waa inuu sii anbaqaadaa. marka runtii dadkii ka shaqeynayay ciidankaas dagaal ka qayb galay iyo kan bay sameeyaan markii ciidanka wadanka yimaadaan ay arkaan way yaxyixi doonaan. qodobka labaad oo muhiimka waxa waaye dowladda Eritrea taariikh siyaasadeed oo muddo dheer jirta naga dhaxayso. waxay aaminsan yihiin xorriyadooda inaan ku caawinay waana run. waxay aaminsan yihiin istiqlaalkooda inaan kala shaqeynay jiritaanka dowladda Eritrea aan kala shaqeynay. sababta ay ciidankan noogu dhisayaan waxay aaminsan yihiin shacabka Soomaaliyeed wanaag ay u hayaan iyo kalgacal ay u qabaan bay u siinayaan. laakiin waxa la aaminsan yahay in systemkii farmaajo nabadii nool ee dowladda Soomaaliya xilliga jirtay afawarkii xiriirkiisu inuu halkaas ku ekaanayo sababtoo ah dad badan oo ay kamid yihiin madaxda hadda xukunka joogtaa marar badan waxay ku eedeeyeen afawarkii inuu kaliya talisnimo ku abeerayo Soomaaliya. waa maqashay sax afawarqi inuu kaliya talisnimo ku abaabinayo Soomaaliya hadda yaa dhahayo warkaas oo kuwii Tigreega dhahayo laakiin madaxweynayaal hore yiri waa dadkii Tigreega u shaqeynayay oo beentan faafinayay. aniga wadanka kale sida loo maamulo inaan farageliyo xaq boo ma lihiba. aniga waxaan xaq u leeyahay inaan ka hadlo dalkayga maxaa maslaxa oo aan dalka ka heli karaa. dowladda Eritrea waxay noogu deeqday inay ciidan Soomaaliyeed noo tababarto way ku mahadsan yihiin salaam baan waliba siinaynaa. rajada ka qabtin ciidankaas Soomaaliya ku soo laabtaan faadahan inta lag waa ku dhawaaqay madaxweyne Xasan Sheekh ku dhawaaqay madaxweyne Maxamed Abdullaahi Farmaajo uu ku dhawaaqay inuu ciidanka kala wareegay waana la keenayaa ciidanka waana ayagoo tababaran oo faa'iideysan oo sababta aan ku leeyahay markay ciidanka wadanka yimaadaan ayagoo waji gabax bay joogi doonaan siyaasiyiintaas. markaad eegto khibradda aad u leedahay al-shabaab iyo hay'adda amniga aad ka soo shaqaysay iyo shaqada dheer ee aad muddo 5 sano ah gacanta ku haysay ee dowladda federaalka ma isleedahay waa la gaaray xilligii wada hadal ay gal lahaayeen dowladda federaalka iyo al-shabaab. taa walaal waa policy dowladeed. aniga hadda aanon xil dowladeed haynin inaan ka hadlo munaasab imahan waa in dowladda Soomaaliyeed ay fiiriso maslaxadeeda intay ku jirtaa ma inay la hadashaa ma inay la dagaashaa oo institutionadu ay ka shiraan oo la daraaseeyo oo la qiimeeyo. haddii farmaajo aniga hadda meel aan ka hadlo hadda mawduucaas ma joogo. haddii farmaajo soo laama la maxay kaga qorshaysnaa qorshaan ka dejisan lahayn qorshahaas aan ka dejisan hadda kadib baad dejin lahayn soo idin degsanaa maayda al-shabaab iyo mawduucdeeda waxay kamid yihiin ajandayaasha ugu waaweyn dalka laakiin hadda ma rabo inaan ku dhaw waa la hadli lahayn lama hadli lahayn ma rabo inaan ku dhaw waxaan rabaa inaan ku weydiiyo haddii dowladda federaalka ee madaxweyne Xasan Sheekh hogaaminaya maanta uu xil ku soo bandhigo khibradaada wali inaad caaboon tahay oo dhalinyaro tahay Soomaaliya ay ku baahan tahay sida aad ii sheegaysaa ama aad aaminsan tahay ma isleedahay xilka waa qaban kartaa haddii xil lagu soo bandhigo armuusan ii soo wadinba haddii lagu soo bandhigo damiirkayga iyo habka aan u shaqeeyo iyo sida aan siyaasad ahaan uga fakaro oo aan siyaasadda uga shaqeeyo kuma salaysna haddii xil lagu soo magacaabo maxaa sameynaya ha ay maya saa kuma salaysna waxay ku salaysan tahay aragtida siyaasadeed ee dowladda lagu maamulayo waxaan ka aaminsanahay aragtida siyaasadeed haddaan ka aaminsanahay inaan waardiye u noqdo diyaaraan ah askari inaan inta noqdo waardiye noqdo haddii aanan ku qanacsanayna jagada ugu sareysana kama rabo tan u dhaxaysana kama rabo marka haddaadan siyaasadda Xasan Sheekh ku shaqeynay aadan aaminsanayn waxba kama qabanaysa haddii lagu soo bandhigo xataa ma dowladda hadda way cusub tahay ba ma ahan dowladda inaan ku leeyahay ma aaminsaniba way cusub tahay afkaarteeda soo bandhigto xukuumadeeda ha dhisato systemkeeda ha samaysato ha la gaaro laakiin theory-gu ma aha xilmi lagu magacaabo mise xil lagu magacaabo theory-gu waa falsafada siyaasiga dowladda Qatar oo saameyn ku leh Soomaaliya adiga ayaa la aaminsan yahay inaad dhextaal u tahay xiriirka ay Soomaaliya la leedahay walaac ma laga qabi karaa hadda xiriirkaas inuu hoos u dhaco
maadaama Fahad iyo Farmaajo ay bixeen bishaaro waxaan kuugu bishaaraynayaa application-ka Baysi waxa uu ka caawinayaa inaad ehelkaaga lacag u dirto adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqada loo diraha lacagtu waxay ugu dhacaysaa telefoonkiisa gacanta Baysi waxaad ka heli kartaa App Store-ka iyo Play Store-ka yiri farax hal shay iska dhaaf shakhsiyadda iska dhaaf dawladda Soomaaliyeed inay xiriir wanaagsan caalamka la samaysto maslaxadeeda ku jirto dawladda Soomaaliyeed maslaxadeeda waxay u aragtaa inay caalamka xiriir fiican leedahay aniga hadda xil ma bahayaba in qadar xiriir fiican la samaysan in la samaysan position-ka go'aanka u gaari la ma joogo laakiin dawladda Soomaaliyeed hadda jirta waxaan aaminsanahay inay ilaalin doonto cid walba oo Soomaaliya inay xiriir fiican la yeelato dawladda qadarna xiriir lama lahayn Fahad institution ma aha hay'ad ma aha qof baa hadda maxay la soo xiriirayaan dawladda Soomaaliya madax ka nothing sabab ay la soo xiriiraan ma jirto Soomaaliya shaqooyinka hay'adaha basaas ay ka qabtaan gudaha Soomaaliya inta badan dadku waxyaabo kala duwan bay dadka Soomaalidu sheegaan shaki badan ay qabaan qof kasta oo ay arkaan waxay aaminsan yihiin inuu waxyaabo kala duwan ka shaqeynayo hay'adna sugu tagtay waxa ka runa wataan daay ku sheegay waana mid hadda aan ka cabsanayo runaantii aad uga cabsanayo aadna uga murugeysanayo wadanka Soomaaliyeed sirdoonka ajnabiga baylah baan u ahayn haddana waxaan ka baqayaa waa in baylahdii lagu celiyo maca asaf shadiid aad aan wax ma inaan kalmada isticmaalo wadadii baylaha la qaaday aad baan wax ma oo jeedin dadka loo magacaabayo iyo sida lagu dhisayo baylaha ma uu noqonay sirdoonka ajnabiga laakiin anagu waxaan gaarnay inaan sirteenana ilaashano institutionadeena dhisano ayagana aan ka sara marno dawladdu wax yar ay magacaabantahay waliba hay'adaha amniga waliba hay'adda nabadgelyada kaliya wali la dhisay dal hay'ad nabadgelyada baa indhow ah jiritaankeeda mas'uul u ah muuqaalkeeda u ah waxaan rabaa inaan ku weydiiyo dadka Soomaaliyeed ee caadiga aniga oo kale hada Soomaali caadi ma jiro journalistata dadka Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed ka mid ah dhinaca kale fi muwaadin ahay maxaan ogeyn oo Soomaaliyeed ka socda siyaasadeeda gudaha hal iyo laba iga sheeg wax badan fargelinta inta ay la eg tahay dadka badankiis ma fahamsana fargelinta Soomaaliya lagu hayo aad bay u sareysaa dawladdii madaxweyne Maxamed Abdullaahi Farmaajo 5 sano iyo xogaagii uu madaxda ka ahaana waxyaabaha uu ku guuleystay waxa ka mid ahayd Soomaalida iyo dadka dhibka ku ah inuu isbaray dawladaha Soomaaliya danaheeda aan ka shaqeynayna inuu baray waliba u magacaabay dawlad hebel iyo dawlad hebel yiri dadka Soomaaliyeedna indhahooda hadda xoogaa yar u furmay oo ay fahmeen yaa maslaxa ah yaana maslaxa u ahayn dan si kale kuugu dhigo caalamka dawladaha ka jira marka ay Soomaaliya fiirinayaan saddex xeer waa qaar dana yar oo sahla oo aan istaraatiijik ahayn bay ka wada hadlaan mayna dhamaataa qaarna mustaqbalka jiritaankooda waxay ka arkaan hadalkaas fiican u dhageyso mustaqbalka jiritaankooda waxay ka arkaan Soomaaliya oo daciif ah Soomaaliya oo security ku fashilantay Soomaaliya oo qallaas siyaasadeed ku jirto qaarna mustaqbalka dalalkooda waxay ka arkaan inay kaabayso Soomaaliya oo awood leh Soomaaliya oo degan siyaasad ahaan Soomaaliya oo nabad ah madaxda qaranka Soomaaliyeed marka waxa la rabaa inay kala ogaadaan waxa waaye dawladaha istaraatiijikale u arka Soomaaliya inay dhisanto xoogaysato inay dantooda ku jirto kuwaas la rabaa inay kaashadaan kuwa kalena shacabka Soomaaliyeed aan fake loo sheegin ee runta loo sheego magacyada dawladahaas ma sheegi kartaa ma raba hadda inaan kala qaado dawlad hebel iyo dawlad hebel iyo dawlad hebel inaan kala dhaho ma jiro laakiin waxaan filayaa in haddaba dadku yaqaanaa marka intaas sir waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su'aal kamida su'aalihii qubanaha ahaa oo dambaysa danaha Soomaaliya laga leeyahay aad u waaweyn yihiin sida marar badan la sheego mid kamid ah ku soo qaadaya waa malafka ama faylka Ethiopia iyo Masar ilaa iyo intii Soomaaliya ay xornimada qaateen labada dawladoodba waxay ku lahayn saameyn siyaasadeeda gudaha iyo xaggeeda amniga iyo faragelintaba waan ku lidisku adanahooda biyaha wabiga Niilka waxa isku hayaan labada dawladood ee Ethiopia iyo Masar oo ah laba dawladood waaweyn oo Afrika labadan aan ku wada jirno midowga Afrika midna aan ku wada sii wada jirno jaamacatul Arab
dowladdii aad adigu taliyaha nabad sugidda ilaa agaasimo madaxtooye ilaa agaasimo ku-xigeenaysa ilaa la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha aad ahayd waxay wadaay iyo xulafo dhow la ahayd Addis Ababa Ethiopia doorkii Masar miyaad lumiseen markaad xiriirkaas sidaa ka dhigteen ma jeceshahay inaad barato qur-aanka kariimka ah iyo culumta shareecada ugu kaalay markaska Nuurayn online oo baro adigoo gurigaaga jooga qur-aanka higaada iyo culumta kale islaamka wixii faahfaahin kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda waxaana fahamsaneen maxaa isa saaray Masar waa dawlad علاقة في عنا لسه مهسنايو حرير في عنا لليه مد كلتشر مد سياسات مد دقالة مد صاحب تنمو إثيوبيا أنتو كلا لسه مهسنا حاسة صاري هذه الدولة تبى السلام الدولة تبى الله الدرر وايد شو صار أنت مصر صاحب على النقطة إثيوبيا صاحب على النقطة دنت الصومالية ماشي كجرتانا مرة بلغلاش قيناها ولا سكاشنايا لكن أنا الصومالية وأنا كإلالينه دولة مدحون محمد عبد الله فرماجنا وكإلالية إن صوماليا أي نقطة مال لولا بنان كإيمانها الله استعماله مركز دي إجرين دولة إسخلاف سن أيوة هاي سراسدان أنا تبرب أموها هايبة تبرت أسموها هاي نبغى. إن هذيك صور هرتين خلاف كاس وجودها كانت من سود ويستن منا بنان جيسين. خلاف كاس أو كان ما مصر دوين أو بقول مليون كبدن إثيوبيا بقول مليون كبدن بقى أنا عن سكودرني أما أنا شو كان سيقول إيه هذه أي بي سكوا حسان أي كيشيان أنا واحد كليو عن دولة سمال اسمين كرت وحاول أنا ترى هذا قعنت هذا هلا بحشة وشان أنا ما حق لين مركي إثيوبيا مصر عن كهذا لنا بيها وبيجني لك مركي قد مثل سكوا هي الصومالية لحد هذا قاعد هذا موقف كتاريخ الصومالية ولا قد أحمد دي بدك قاعد جرت دولة دي محمد سياب بري مركي عربت إسخلافان ما تحكي لجرين مصر مركي عربة ودن قويسي دولة دي حلي قاس جرتي مصر بحرير كوهيسي ولا هي دولة الصومالية مركي دولة إسخلافان ما تحكي لجرين حكوا الدين وحي إسريني أيوه هيسير إذا محانا نحكي لله هذه السين هذه هذا أمها تصنطعي ورئيسي وحان ربع لبس على ضوء قدام بيننا كويديو 5 سنة يبلو عاد كسر شقيسي أجاسمين مدحتويو إلا إيو لا تليها مدحونا أمريكا قرنك وقدم بي إلا تلينا بس وجاد الشقدي على القبطي مكفر حسن تهاي وحكا خلدوي متشرين وحاسل هذا الله هالكاس إيميل ما طوي فعنا الله هذا نسيه ولا متشرت والله هرت مركب كوات هذا أنا وحن كل شقينا إن برنامجكم مدحونا ومد الصومالية إيكو دورتي برنامج كاسانا فرينيني حكومة فرينيسي هي ذاك الدوانة دولة فرينيسي برنامج كاس برنامج دمايسترن ودلك ميل جارسينا يوها أنتي هدا 5 سنة بركة هينا شقاء وناكسن ودنك الله قبت بني آدم باليه ولا خدمي كرا أنا هدا جار يوديسي إنه استوش كان جوج بني آدم بانه وخدمي كرا وإحنا وهجاجين كرا وإحنا وخدمي كرا لكن 5 سنة بركة بعد والحلال كل دوان سوق قبتي وحن كسب بحي أنا ولا بشيء سهلي أقون هي خبرة دلك يجا شيء دتك يجا شيء صومالي أنويا شيء وأنا جي كررت أنا عافمات قبنا وكسب بحي واحد قبل marka cilmi iyo caafimaad ma soo korsado wax asdii kartid alla ila waxaasi maanta cafis waa u baahanta shacabka Soomaaliyeed inay weydiisatid ma jirta shacabka Soomaaliyeed wanaag waxaan ahayn kama shaqeynaa wax ay shacabka Soomaaliyeed dambi ah oo ay haystaan ma jiraba oo ay leeyihiin maanta fa dambigaas oo galay cafis ka weydiisto mid kale aniga shaqaalaha hoosaan ba ahaba anoo agaasimo ma dhaafin horta moogta haddaan chance ku siiyo dadka Soomaaliyeed oo aad 5 sano iyo bilo aad meel kala duwan ka soo shaqeysay waxaad fariin is aragiina dambe waxa laga yaabaa inuu qaato 10 sano oo kale inaad san kale iska hor fariistaan fariin aad gudbin lahayd jirta ha laba fariimood baan gudbin lahaa hay fariinta koowaad waxa waaye dadka Soomaaliyeed waa baraarugteen cadowgiina iyo saaxiibkiina waa kala barateen baraarugiinaas wuxuu marqaati u noqon doonaa dib u dhiska dalka wuxuu marqaati u noqon doonaa dib isu haynta dalka nin siyaasi ah iyo dawlad markaas jirto garaadka Soomaaliyeed maanta uu ka weynaaday garaadka Soomaaliyeed maanta wuxuu soo gaaray danahooda qaranka inay iyaga ilaashadaan waad ogtahay kiisas fara badan oo shacabku waardiyaysan jireen baa jiray oo iyagu ilaashan jireen ummadda Soomaaliyeed marka fariinta koowaad waxa waaye garaadkaas abuurmay inuusan ka bixin ay dalkooda ka niyad jabin sida ay dalkooda gaar iyo waardiye uga ahaayeen oo ay uga sareeyeen siyaasiyiinta
haddaad fahamsantahay meeshaan u jeedo waxa waaye garaadka ummadda Soomaaliyeed wuxuu gaaray inay ayagu yihiin dadka ilaashanaya dalkooda oo siyaasina khaldi karin dareenkaas abuurmay oo saaxiib iyo cadow kala garteen danta Soomaaliyeed dadka shaqeynaya dadkan ka shaqeynayna kala garteen inay ilaashadaan horta waa number 1 qodobka labaad waxa waaye oo fursad qaali ah inaan kula dardaarmo Soomaali baa leh Soomaali baa ilaashan karta Soomaali baa waardiyeysan karta maalinta aanu annaga isku tashanno baa waxa naga dhimana dhameystiran karnaa dadka Soomaaliyeed markay aysan ku mashquulin faragelinta intee la egtahay faragelinta xagee ka timid way jirtaa way qodanta laakiin ha u tashteen ayaga wadankooda aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Fahdi Yaasiin waa kaaga mahadcelinayaa waraysigaaga insha Allah daawadayaal gabi ahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa waraysigii gaarka ahaa iyo xog warankii aan la yeelanay agaasimihii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Soomaaliya Fahdi Yaasiin Xaaji Daahir xilkii ugu dambeeyay oo hayeen oo ahaa la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waraysigan oo waxyaabo kala duwan aanu kaga hadalnay nabadiino bishaaro waxaan kuugu bishaaraynayaa application-ka Baysi waxa uu ka caawinayaa inaad ehelkaaga lacag u dirto adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqada loo diraha lacagtu waxay ugu dhacaysaa telefoonkiisa gacanta Baysi waxaad ka heli kartaa App Store-ka iyo Play Store-ka